بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة يا الكسور وهذا ملك استوى جوتان تي في عالمي كسمسة تي في وحاب برنامج كان المانتا مرتين ووزير كأمني جماعة القبلات كخاتمة استياد وصوماليا كورنيل محمد دعالة عبدي محمد دعالة عبدي وهرين كسور وهو تي في جا سمسة تي في عالمي. بعد سنتهاي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن هاد إلينا يا تلفزيون كي الشقالي سيدا وناكسني وعوضان. أنا مظن ساعات وسير وجهرين دوانا إنه حاجة لي وفود ورجامين مدحونها متكملة قلها مدحتوي دي إمام الكخاتم ويستي وإسلام كان سؤال لك كنا بحي كان بلابي مقالة نيروبي إلى قارة يوروب محضرنا سؤال راس. وسؤال وناكسني إن مدحوينه أنا محمد يوسف نشال يوفتي ولا صعود وقال وزيره أيها يمد أن قارة يوروب يا أفريقيا انتبه دلك إثيوبيا أن كينيا يمال كله وحي هيد إن أيلا كلمان لما با هي هذا international كا إن أيلا كلمان UN كا إن أيلا كلمان دولة الدرس كا إن أيلا كلمان إتكستو أدنين يسا الرمها صومالي إن أيلا كلمان خاصة أي كهدلان وهلك يوجد بيان وجارسيان رسالة دخاتهم استيت أيلا ده هاي إيو برنامج شديد سلاسة هيد وحنا لقى جاري كنا هانتي يقول أضو بالارم صوت عالكاس. وح مضحى أما وح يدها عالمية وكتر سن international figures كوضلا كولنتين ولا تابكرا منو شيء. ها وحلا كل ماي وقيب سنها إن UN كان نك وقابل سنة رمها إن صوماليا من تري جروب كلا كل ماي إن وحلا كل ماي إن حفيزيا أمريكان كا إن سويدن إيو سفارة كلا فرا بدن بالله كل ماي دلك ما إن إنجليز كسيدا سوكر وحلا كلاني إن شغالها أما أجاسمياش جود كل شغالة أرمها صوماليا قابل سنبان يجانا الله كلاني. وقرن ساعات وسير أدوب واحد هاي وسير كأمني جاي معمول كخاتم استيد واسد حالة أمني ديجانا ده خاتم استيد وانا كوي ديجانا ده معمول كأنه كتلي حد يرتاح شوكتان معمول كيجو وكتلي لما بدلك خاتم إسكالي ده هاي قبل هذا إسسي بكتلي مركز لقى ريبو مقالة مدحدا لاس عنود oo sida laga warqabo intii muddo ahayd ba ay Malaysiada SNM ay ku soo duushay ogna ay ku haysatay halkaas oo had iyo jeer ay ka geystaan dhibaato aad u fara badan oo dhac iyo kufsi iyo dil iyo xabsi iyo maantay dhibaato badan ay u geystaan dadka birmageydayda ay u geystaan dalka intiisa kale saynu ka warhayno waa dal khaatumo weeye khaatumaana ka tirsan khaatumaana joogta nabadgelyadu waa caadi weeye wax dhibaato oo ka jira ma jiro khaatuma nabadgelyadeeda waxay ay ku naaloonaysaa nabadgeliyo boqolkiiba boqol ay ku naaloonaysaa iyadii dadkeeduba ilaahayna waxa ka barayna inuu kordhiyo way saacad wasiir hadii nabadgeliyo ka jirto deegaanada khaatuma iyo magaalooyinka idinku aad gacanta ku haysaan maxaa loo waayay waxa hay'adaha idila shaqeeyo markaas inta isku soo aaminaan bas idinka ku qanci kari waayay inaad hay'adaha keentaan deegaanadii waa su'aal wanaagsan weeye sidaad ka warayso maamulka Khaatuma State uu cusub yahay dhulka markii hore gabiga ahaanba labada maamul ee geesaha ka xiga ayaa u tashaday tala qaldan u tashaday kuna shaqaystay magaca Khaatumo iyada oo Puntland ay ahayd mid ay wax ka dhiseen markii hore reer Khaatum ka dhiseen markii dambena lagu heshiin waayay markii ay sameeyeen taasub wax la yiraahdo ama qabiil ay sameeyeen ayay ka goosteen Somaliland sidaas oo kale ayaan uga baxnay hay'adihii markii hore marka labada qaybood bay soo mari jireen waxay marka u eg tahay ama aanu ka wada hadalay UN-ka iyo hay'adaha samafalkaba ka soo goynta ay ka soo go'ayaan in ay qaadanayso muddadiina hadda waa dhamaad raashinkii ugu horeeyay baa yimid isagu oo dawladda Turkiga ay keentay kuwa kale imika jooga oo ka qayb gala kuwa biyo geliyay iyo kuwa nadaafad ka shaqeeyay iyo kuwa iskuulaadka intaba oo buuhoodle iyo jooga meelo kale fara badan jooga wayna soo kordhayaan hadii Ilaahay nafta inoo daayo waxaanuna filaynaa sanadka aakhirkiisa shirkani markuu dhamaado in dhamaanba hay'adaha samafalka iyo inta danaysa Soomaaliya ay Khaatumo ay iman doonaan hadii Alle nabadgeliyana ay ku joogi doonaan marka adigu hatan waxa tahay wasiirka amniga ee maamulka Khaatumo hay'adaha caalamiga iyo waliba bulshooyinka ka mid tahay dawladda Turkiga aad ka dhawaajisay wada ballan qaadaysan Soomaaliya inay deeqdooda ay dadka loo baahnaan gaadho shaqaalahooduna ay amaan helaan waxaan u ballan qaadaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala annagoo kaashanayna
inay nabadgeliyo buuxdo oo ayan meel la ka helaynin ay khaatumo ka helaan kuna joogi doonaan wixii yimaada wixii shaqaa ay doonayaan inay fuliyaanna sidii ay u rabeen annaguna aan u doonayno iyaguna ay fusha haddii aan laydno dabcan maamulka khaatumo waxaa la dhisay bishii Janaayo ee sanadkii 2012 ugu yaraan hadda 21 bilood ayaa jirtaan maxaad qabateen oo hadda la taaban karaa oo deegaanada aad leedihiin marka laba maamul baa ku tacadiyay idinku dadkii shacabka ahaa ee markaa maamul iskood madax banaan u baahnaa maxaad uga rayseen maamuladaas waa su-aal aada u qiimo badan weeye khaatumo markii la sameeyey dhammaanba dadka reer khaatumo waxay ku sheekaysan jireen saddexdii qof ama labadii qof meel isugu timaadaa waxa la yidhaahda Puntland iyo Somaliland bay ka hadli jireen kama ayan hadli jirin khaatumo wax la yidhaahdo oo ma ayan abuurayn maamulku wuxuu suurta geliyey in uu soo celiyo haybadii iyo sharaftii iyo magacii ay lahaayeen dadka gobolada SSC Sool Sanaag iyo Cayn ayna yeeshaan sumad gaar ah ama calaamad loo yaqaano oo ah dawlad goboleed iyagu ay leeyihiin oo khaatumo la yidhaahdo wax qabadkaasi waxaa ka mid ah wax laga qabtay arrimaha waxbarashada laga qabtay oo caana oo loo yahay wax laga qabtay airportyada oo la dhisay oo diyaara oo wax laga qabtay waxa laga qabtay arrimaha amniga iyo ciidamada ayaa wax laga qabtay waxa laga qabtay arrimaha immigration iyo sodcaalada wax laga qabtay waxa laga qabtay dhisidda maamulka kor ilaa hoos ayaa wax laga qabtay inkasta oo nasiib wanaag meelaha qaarkood sidii loogu diyaar gareeyay ayaan uga shaqo gelin hawlahaas ay qabatay maamulku arrimaha siyaasadda ayaynu ka warhaynaa siyaasadda dibadda oo uu ka qabtay wax fara badan oo ay ka gaadhay khaatumo run ahaantii heer lama firaana iduna ayan ku tashan muddada yara intaada inay ka qabtaan dabcan systemka maamulka khaatumo ama qaab dhismeedka aad u samayseen waxaan inta badan uu kaga duwan yahay kuwa maamul goboleedyada kale ama maamulada kale ka jira guud ahaan geyga Soomaaliyeed 3 madaxweyne ayaa diyaarateen 3 madaxweyne maamulka khaatumo uu sameeyay waxaa muuqanaysa inay caqabado badan ka yimaadeen oo qaarkood iskhilaafsan yihiin arrintaasu ma tahay mid aad ku khaldanaydeen oo ay tahay inaad hadda kadib saxdaan mise weli systemkood ku adkaysanaysaa waxa weeye horta sida banaanba horta qofkii wax qabta ee shaqeeya ayaa qalad la yimaada qof aan shaqaynin oo waxba qabano meel iska fadhiya ma qaldamo oo waxba muu qabanin haddii uu qalad ka yimi systemkaas saddexda madaxweyne wuxuu ahaa system aan ka shaqayn karaynin Africa oo aan loo baran oo aan caado ka ahayn laakiin markii la arkay markii la sameeyay maamulka waxay ahayd in ay noqotay maslaxadin loo arkay in saddexda madaxweyne la sameeyo waa la sameeyay saddexda madaxweynena way shaqeeyeen maamulkoodu wuu shaqeeyay golahooda wasiirada wuu shaqeeyay shaqo aan run ahaantii aan la ilaaweynin bay sameeyaan qaladaad wuu dhacay oo qalad badan baa maamulku leeyahay ma dafirayna aan laakiin wuxuu noqonayaa mid aanu ka faa'iidaysano oo wadadii shalayta aanu maray aanan dib u mari doonin wixii khayr iyo wanaag aanu samaynayna aanu kordhin doona haddii Allaydmo cidda naga dambaysa annaga ay samayn doonaan haddii Allaydmo waxaad dhowr jeer ka dhawaajisay in magaalada Laascaanood ay ka taliyaan maamulka Somaliland waxaa la ogyahay in dad ka soo jeeda deegaanka Khaatumo oo u shaqo tagay ama ka shaqeeya dhinaca maamulka Somaliland ay Laascaanood inta badan dadka ka arrimeey yihiin dadka marna ma isku dadeen inaad wada hal nabadeed la yeelataan si dadkiina dhinacu isugu raaco maamulkan kalena markaa meesha ka baxo wuu jiraa fikir ah oo dadka qaar qabaan Khaatumo iyada kala haysatay aduug ma haysto sheekadaasi waa sheekooyinka madhalayska ee aan macnaha yeelanaynin weey ninka reer Khaatumo ee Somaliland la jira ama SNM la jira macnihiisu waxa weeye waa nin shaqo tagay weey shaqo doontay shaqo meesha ka helay shaqo u jooga shaqada uu helayna waxa weeye mid ah in lagu karbaasho dadkiisa in lagu karbaasho maamulkiisa lagu karbaasho si wax loogu sheego si waxana looga raadido ka weeye waxaanu filaynaa arrimaha noocaas ah inay iska soo gabagaboobaan sida ugu dhaqsaha badan hadii Ilaahay idin maamulka Puntland waxa ka soconaya diyaar garowga doorasho heer parliamentary ama qaabkii hore ee beelaha ahayd sida loo ogsoon yahay raggii beesha Khaatumo ama deegaanada Khaatumo ka soo jeeday maamulka ku jiray markii aad ku dhawaaqdeen ee Khaatumo bardiheedii tarax ka dhawaaqday inaad ka baxdeen isla asli kamaan ay soo bixin haddana raggii rag kale ayaa xudal ka doonaya arrintaas sidee bay
isku waafaqsan waa wax sahlan weeye waxa weeye khaatumo qayb kamida ama dadka qaarkii ama isimada ha noqdeen ama dad kale wax garada ha noqdeen yaa ka qayb galay dhismihii Puntland markii la dhisay waxaa loo dhisay nidaam cadaalad iyo midnimo iyo xuquuqda oo la qaybsado ayaa loo dhigay intaa kadib meesha la yiraahdo laascaanood oo magaalo madaxdiya waxaa dhiibay xilliyadii ay u kala dambeeyeen madaxweynayaasha Adam Muuse Cabdilaahi Yuusuf Farolo wali jooga sagaar uma hirdiin ninna dhagax uma tuurin kamana ayan dhiidhiin mana ayan daraynin taa macnaheedu waxa weeye dhul ay leeyihiin ma aha haddii dhul uu leeyahay oo ahaan lahaa waa ka dagaalami lahaayeen waxna way ka geysan lahaayeen taasaa marka waxay keentay in uu burburo ahdigii ama heshiiskii aanu ku wada dhisanay Puntland khaatuma marka arrinta iyada way ka baxday maamul bay dhisatay dawlad goboleed khaatuma la yiraahdo kaasoo annagu aan iska leenahay laga leeyahay deegaanka dadka degan ha noqoto dadkan gobolada SSC ha noqoto qabaa'il kale oo fara badan oo kamida ilaa 5 qabiil ayaa wada dhistay oo kala go'an oo Soomaaliyeed kuwaas ayay u tahay dawlad goboleed u tahay kuwaas bay u tahay meel ay ku soo hirtaan iyo magac Soomaalinimada ay ku ilaalinayaan ahna ka tirsan federaalka dawladda Soomaaliyeed ma laga yaabaa in madax dhaqameedkiinu ay magacaabaan xildhibaano cusub oo maamulka Puntland intay u saxaan waraaqo ay ka qayb qaataan doorashada madaxtinimada ay dadka doortaan su'aashaasi waa su'aal meesha ku jirta sida aad ka warhaysaan oo meediyaha ay ka sii daayeen isimadu imikana aad ka heli karaysaan webabka iyo meel kasta aad ka helaysaan codadkoodiina ay duuban yihiin isimada Khaatuma State waxay ballan qaadeen in ay wax warqada u saxiixi doonin qof ka qayb gala maamulka Puntland iyo ka SNM midnaba inay u saxiixi doonin taa macnaheedu waxa weeye wax xiriira oo siyaasadeed oo ka dhaxeeya Puntland iyo Khaatuma State ma ay jirto marka laga hadlayo maamulka siyaasiga marka laga hadlayo dadku waa ehel waa dad wada dhashay weeye way wada noolaan karaan way isdhexgali karaan wixii ka dhaxeeya bay iska qaadan karaan laakiin siyaasadda way ku kala tageen laba maamul bay yeesheen waanu soo dhaweynaynaa haddii Puntland ay ku soo biirayso Khaatumo oo ay la midoobayso waanu soo dhaweynaynaa laakiin Khaatumo lagama yaabo inay la midowdo Puntland xilligan maanta la joogo waa garanay arrintan ku saabsan waxaa qabanqaabo xoog loogu jiraa shirkii Khaatuma 3 ama Khaatuma 3 shirarkan si loo yahay ka soo bilowday magaalada London oo Khaatuma 1 Khaatuma 2 oo lagu qabtay talax Khaatuma 3 wuxuu kaga duwan yahay shirarkii hore u dhacay aad buu uga duwan yahay Khaatuma 3 waa shirweyne lagu magacaabo shirweynaha kala guurka maamulkii hore ee anigu aan wasiirka ka ahaa ee ku meel gaarka ahaa waqtigiisii uu dhamaaday waxaa loo baahan yahay oo reer Khaatuma hadda ay diyaar u yihiin in ay dhistaan maamul cusub oo aan ku meel gaar ahayn ee rasmiya kaas oo yeelan doona hal madaxweyne ku xigeen golihiisii wasaaradaha golihiisii maxkamadaha iyo qaanuunka iyo shuruucda dastuurkiisii baarlamaankiisii sidaas buu kaga duwan yahay kii hore waxaanuna rajaynaynaa dhammaanba dadka reer Khaatuma meel kasta ay joogaan in ay u tafaxaytaan sidii shirka uga soo qayb gali lahaayeen ugana qayb qaadan lahaayeen ama dhaqaale ha noqoto ama ra'yi ha noqoto ama tala ha noqoto waxaan kaloo xusuusinayaa dadka reer Khaatuma ma aha shirka kan waxa lagu dhisayaa mid la magacaabayo iyo mid nin gacanta ugu jira iyo mid nin iska leeyahay midna ma aha waa doorasho weey nin kasta oo dareenayo hunguri ka hayo inuu wax ka noqdo ilaa heer madaxweyne ilaa inta ka hooseysa uu xaq u leeyahay intuu yimaado taleex inuu raadsado waxa uu doonayo una tartamo nasiibkiisa ka qaato waa garanay maamulkan hore aad ka tirsanayd ama haatan waqtigiisa uu gabaabsiga yahay qaar ka mid ah madaxtooyadoodu waxay ku adkaysanayaan inay weli iyagu madaxweyne meesha ka yihiin isla markaana shirkan uu yahay mid aan dhici doonin arrintaasu sidee u saameynaysaa shirkan waxa weeye
inta horta la wareejinayo shirka kan ee dawlad cusub iyo maamul cusub la dooranayo waa runtood iyagaa madaxweynaha wasiirku waa wasiirkiisii madaxweynuhu waa madaxweynihiisii nin waliba shaqadii uu hayay ayuu hayaa wuxuuna ku simayaa marka ay timaado dawlad la doortay oo bedesho tan ayuu imanayaa iyaga ayaana laga rabaa inay xil wareejin sameeyaan dastuurkii bay wareejinayaan dawladdii ay gacanta ku hayeen muddada ayay wareejinayaan wixii ay qabteen bay wareejinayaan wixii kale looga baahan bay wareejinayaan baarlamaankii bay diyaar garaynayaan intii looga baahnaa bay diyaar garaynayaan dabeedna marka hawshaasi dhammaato ee maamul cusub la magacaabo ayay xilkaa wareejinayaan halkaasaa xilkoodii ku ogyahay marka hadday sheegtaan inay madaxweynayaal yihiin waa run inta laga wareejinayo sida sharciga iyo nidaamka u qabo waa fahmay arrinta maamulka ama deegaanada sool sanaag yacayn ee maamulka Khaatuma State waxaa jira beero kale oo la dega beesha hadda tusaale ahaan adigoo wasiirka u tahay aad ka soo jeedo beeraha kale ku jira iyo dawladda cusub ee la dhisayo mise banaanka ka hanay way ku jirayaan waana la gaarsiiyay fariinta iyo risaalada waa la gaarsiiyay xaq waxay u leeyihiin inay yimaadaan xaq waxay u leeyihiin inay sharaxaan xaq waxay u leeyihiin inay raadsadaan wixii munaasib ee meesha ka jira xaq waxay u leeyihiin inay talada wax ka dhiibtaan iyo aragtida iyo ra'yiga inay wax ka dhiibtaan xaq waxay u leeyihiin inay u arkaan wax iyagu ay leeyihiin doodooda iyo aragtidooda ay ka dhiibtaan wixii ay diidan yihiin ay sheegtaan waa wax ka dhaxeeya dadka deegaanka dhammaantood haddaynu soo noqono xagga arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaa jira dawladda federaalka ee Soomaaliyeed madaxweynaheeda in badan oo booqday qaybo kamid ah dunida inteeda kale ama Yurub ha noqoto ama Mareykan safarkiisa ugu dambeeyay ha noqoto dad ka soo jeeda maamul goboleedkiina oo inta badan ayaga ah dadka ku mudaharaaday baad ugu banaan baxay waa maxay waxa madaxweynaha iyo reer Khaatuma ka dhaxay run ahaantii arrintaasi waa arrin mucaqada una baahan in si dhab ah looga hadlo madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya markii la dooranayay reer Khaatumo dadkii aad ugu ololeeyay ayuu ka mid ahaayeen dadkii gacan weyn ka geystay inuu soo baxo ayay ka mid ahaayeen nasiib wanaag waxay Soomaalidu ku mahmaadaa sidii aan kuugu lisay igumad hambayn intaa markii ay dhamaatay waxaanu filaynay waxaanu xaq u leenahay inaanu helo waxaad ka warhaysaan maalinkii la doortay madaxweyne xasan la doortay laascaanood mudaharaadkii ka dhacay ee lagu ayidayay isaga dad baa lagu xirxiray isaga dartii loo xirxiray calanka loo xirxiray madheere la geeyey ku dhalay madheere ku dhalay oo ku umulay ayaa jiray maalinkii la doorashada madaxweynuhu isagoo jooga Ethiopia ayuu wuxuu hambalyo u diray Siilaanyi uu yiri dimuqraadiyadda la gaaray ayaan ugu hambalyeynaya maalinka iyada ah xabadu waxay ka socotay meesha la yiraahdo xudub oo xasuuq caruurta yaryar iyo haweenka iyo maatada iyo dadka birmageyada ay SNM ku xasuuqaysay taasina mid bay ahayd iyaduna intii ka dambeysay shirarkii la qabanayay dhamaantood waxay ahayd mid la soo taagay oo madaxweynaha iyo maamulkiisu ay soo taageen waxa kale oo meesha nasiib darro ahayd oo iyaduna in la xusab mudan dadka reer Khaatumo waxa weeye kuwa u dhimanaya midnimada ummadda Soomaaliyeed mar walba ilaalinaya calanka buluuga kuwa uu madaxweynuhu gacanta siinayay sida Hargeysa iyo Siilaanyo kale waxay u ordayeen inay kala gooyaan ummadda Soomaaliyeed oo ay u qaybiyaan gobol gobol iyo qabiil qabiil iyo degba degba ay u qaybiyaan marka ma aqbali karayno haddaan nahay reer Khaatumo in kii Soomaali baabiinayna madaxweynuhu gacan siiyo oo madaxa saarto oo wax allaali wixii Soomaali la siinayay uu yiraahdo waa qayb libaax baad leediin reer Khaatumana la yiraahdo kuma jirtaan liiskaba taasi waa taa midda kale waxa weeye ee aanu madaxweynaha ka filaynay madaxweynuhu maadaama ummadii Soomaaliya uu yahay ballanqaadyo badanna uu sameeyay goobo badanna aan ku kulannay inuu ballanqaadyadii uu qaaday ee Khaatumo ku saabsanaa ee waxtarka ahaa ee booliska ahaa ee iskuulaadka ahaa ee dib dhisada ahayd midna inuusan tixgelin meeshoodina uusan ka qaadin oo wax waliba ay noqdaan fadhiga marka la fadhiyo in lagaga sheekeeyo marka laga dhaqaaqana madaxweynuhu uu ilaawo oo meesha kaga kaco waxaanu leenahay dadka reer Khaatumo waxay diyaar u yihiin in ay dawladda dhexe gacan siiyaan federaalka oo ilaaliyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed lana dhisaan gacan ay siiyaan madaxweyne Sheekh Xasan haddii uu ka soo baxa weeye
waajibaadka ka saaran ummadda soomaaliyeed khaasatan reer khaatumo haddii la waayo dee soomaalidu waxay ku mahmaadaa haddii lagu sheegana waa lays sheelaa haddii lagu sheelana waa lays sheegaa dee annagu waa wadaynaa dagaalka iyaga marna ma joojinayno ilaa inta ummaddaa reer khaatumo ay xaqa ay u leeyihiin ay helayaan wax ziyaada ah ma rabaan matalan gobollaa jira beledweynaa jira waxaa jira baydhabaa jirta waxaa jirta garbaharey baa jira iyo kuwo kaloo fara badan waxay helaan un baanu doonaynaa annagu wax ka badan ma doonayno haddii la helo dawladdu waa dawladdayadii wey waanu garab taaganahay midnimada ummadda soomaaliyeed iyo madaxweynaha haddii taa la waayo dee wax iyagaan raadsanaynaa dabcan madaxweynaha dhaliilahan ama codsiyadana leedii uu nagaga baxay haba yaraatee wax dabagalan ku samayseen inay shaqeeyaan mase laga yaabaa inaysan dhankiinaba ka shaqeeyaan madaxweynaha uuna iska eedeynaysa madaxweynaha xidhiir badan maamula lena baarlamaan baa jira federaal ka tirsan oo shaqeeya baan idin waxba ka dhegaysan matalan waxaa dhaca baarlamaanka baydhabo matalan xubnaha ka soo gala madaxweynaha markay u tagaan dantooda weydiisaan ama beledweyne ka soo gala waxaa lagu fuliyaa wax yaroo fudud baa lagu fuliyaa matalan haddaan imanka anigu inta baarlamaanka u tago ay yidhaahdaan waxaanu doonaynaa diyaarad naga qaada halka kan oo aanu ku tagno tale ma la helayo laakiin haddii ay u tagaan beledweyne ama baydhaba ama meesha la yidhaahdo garbaharey diyaarad baan u baahannahay waxaa laga yaabaa 2 iyo 3 in la yidhahdo kala doorta teebaa idin qaadi karta in la yidhaahdo annagu markaa ma aanan joojin siyaasiyiintaan joojin kulankiisa waxgaradkaan joojin baarlamaankaan joojin ilaa iyo iminkana waxaanu annagu rajaynaynaa madaxweyne xasan in uu si wanaagsan arrinta khaatumo uu gacan uga geysto oo naga daayo gamcoodinta naga daayo annaguna aanu dhisno inta nalooga baahan yahay midnimada ummadda soomaaliyeed gacan ka geysano arrimaha ku saabsan shirarka maamulka somalilan iyo dawladda soomaaliyeed ee ka dhacayay dalka turkiga berihii u dambeeyey marka hore ka bilowday ingiriiska sidee ayaga u arkayseen inkastoo aad marar badan dhaliilo aad ka soo jeediseen idinku khaatum ahaan waxaad didantiin inay wada hadlaan dad soomaaliyeed maya xaaraan weeye waxaas oo kale kulanna kuma sheegi karno kulanka somalilan waxay ka tirsan tahay waa qabiil weeye waa qabiil isaaqa weeye gobolka waxaa degan ummado farba 5 qabiil baa degan mee qabiiladii kale meeye xaggay ku dambeeyeen waa 5 gobol weeye 2 gobol waxaa iska leh SC baali gobolna waxaa leh reerka la yidhaahdo gudabiirse baa iska leh 2 gobol baa soo haray markaa 2 gobol miyaa sheekh xasan uu moodayaa in ay yihiin kuwa u taliya ama lagala xaajoon karo masiirka ummadda soomaaliyeed ee ku nool mandiqada taa waxba kama jiraan waa xisaab xumo dhacday weeye mana ogolin mana aqbalayno sideeda bannaanba haddii uu la kulmayo reer ahaan hawla kulmo waa xaq bay u leeyihin ama maamul ahaan hawla kulmo la yidhaahdo isaaqiya la yidhaahdo hawla kulmo ama hawla kulmo hargeysa iyo burca hawla kulmo 2 gobol hawla kulmo laakiin waxaan la kulmayaa dadkii ingiriisku gumaysan jiray ee somalilan la odhan jiray taa ma ogolin mana aqbalayno mas-uuliyaddeedana isagaa iskale madaxweynuhu arrinta xiisada ku saabsan haysashada magaalada laascaanood iyo joogitaanka ay ka taliso maamulka somalilan marna wada hadal nabadeed iyo mid diblomaasiyadeed midna ma ku eegteen mise dhankiina ayaysan wada hadal ka suuroobin maxaa hortaagana waa su-aal wanaagsan weeye waxaa weeye annaga iyo hargeysa ma wada hadlayno kumana gorgortamayno guriga yaga waxa weeye nin haddaad u timaado isagoo aqalkaaga dhexdiisa fadhiya waxa quree kugu habboonay waxa weeye inaad taa soo dhaafadeer dabadda kaale laakiin hadduu ku yidhahdo gurigaagaan kugula hadlayaa soo fadhiiso dee taasi wax meesha yaalla maaha ilaa maleeshiyada cagaha cad ee lagu soo ururiyey laascaanood iyo maxay haytay xudun iyo yagoori lagu soo ururiyey SNM ee la keenay ilaa xabadda ugu dambaysa ay ka baxdo annaga iyo reer hargeysa hadal ma yeelanayn isuguna iman mayno kana wada hadli mayno waxa qurahna dhex mari karaa waxa weeye markaa in waxa ay doonayaan iyagu falka say doonayaan inaan ula qaadno sheekada dhankay rabaan baan ula wadayna haddii nabadgelyo rabaan nabadgelyo aan ula qaadayna ha ka haysteen wuxuuda hadday nabadgelyo diidaan oo ayan rabin dee waxa weeye
magacayga iyo sharaftayda iyo gurigayga sidii aan ku badbaadin lahaa aniga ayaa aqaana marka annagay noo taallaa taasi laakiin muddada 20 bilood ka badan ee maamulkeenu jiray waad ku guuldarraysatay inaad ka saartaan laascaanood bal waxaa la idinka qabsaday xudun marka maxaad ugu degdegaysaan inaad dagaal qaadaan goormaadse doonaysaan inaad xoog isticmaashaan waxaa weeye horta sideeda banaanba khaatumo marka u horeysa horta looma samaynin inay wax disho ama wax boobto ama wax dhacdo khaatumo waxaa loo sameeyey sideedaba inay cadaalad iyo midnimo raadiso deriskana ay kula noolaato si wanaagsan kula noolaato derisyada aan kuu sheegayaa waxaa weeye waa SNM-ta waanu derisnahay iyo Puntland waanu derisnahay labadaba dhaqan baa naga dhexeeya ama dhalashaa naga dhexaysa waxaa qurayaa khaatumo u diyaarsantahay waxaa weeye labada meeloodba in ay kula dhaqanto deris wanaag nabadgelyo iyo wada noolaansho ay kula dhaqanto Ethiopia dalka Ethiopia oo isaguna kilinka shanaada oo aan wax dhibaatayna dhaxoolin isagana waxaanu jecelahay in aan xiriirka iyagu ka sii wanaagsanaado maalinba maalinta ka dambaysa insha Allah ta'ala waxaan mar labaad ku celinayaa arrinta laascaanood Soomaalidu waxay ku maamahdaa wixii xoog lagaaga qaado xoog baa lagu helaa haddii ay door bideen oo ay ku adkaysteen oo ilaa maanta ay ku taagan yihiin maamulka reer Hargeysa in ay ciidan iyo xoog ku haystaan laascaanood taasi waa riyo aan marna laga baraarugin wey riyadaasina way soo dhamaanaysaa dadku dhulkooda iyagaa leh ninna dhulkiisa nin ma haysan karo qabiil ma haysan karo reerna reer ma haysan karo waxaanu leenahay ama annagu aanu dib u dhacna markii hore ama hadda aanu diyaar ahaano ama beri aanu diyaar ahaano waxaa taagan mar walba in dhulkaasi uu yahay dhul maqan adawuna xoog ku haysto dadkiisuna uu diyaar u yahay ugu dambeyntii waraysigeena ayaynu soo gaarnay ama guntiga gabagabadii barnaamijka shirkan ku saabsan aad ku dhawaaqdeen lagu dhisayo maamulka rasmiga ah ee Khaatumo State sidee bay u socotaa qabanqaabadiisii maxaa gudaha ka soconaya maxaa dibadda ka soconaya goormaase laga yaabaa ama aad ku wadaan inuu si rasmi ah u furmo asagoo aan dib u dhac lahayn insha Allah waa su'aal wanaagsan weeye shirku insha Allah ta'ala wuxuu furmayaa 21ka bishan October buu furmayaa wuxuu ka furmayaa Taleex madashiisa caasimadda ku meel gaarka ee Khaatumo State ayuu ka furmayaa insha Allah ta'ala dad gobashu halkaas ay taala waxaa bilowday durba wufuuda inay socdaan oo ay ku qulqulaan Taleex ayaa bilaabatay aniga qudhayda kamida iyo rag kale oo fara badan oo halka kan jooga oo ku sii socda Taleex baa kamida Addis Ababa kuwa ka tagaya ayaa kamida waxaa kamida Muqdisho kuwa ka tagaya oo fara badan baa kamida buuhoodle wasiirada joogay iyo maamulka inta jooga oo isaga iyo dadweynihii uqaashi wax garadkii baa kamida laascaanood bay ka baxeen oo haweenkii iyo ardadii ay ka baxeen saax dheer bay ka tageen waxay ka tageen meesha la yiraahdo boocam ay ka tageen meel kasta oo dadkaasi degan yihiin ayay ka tageen waxaa ballantu yahay in 21ka inta ka horeysa la isugu yimaado shirka dadka marka qurba joogta ee dibadaha jooga meel kasta ha joogeen waxaan xusuusinayaa ama ku boorinayaa in ay ka qayb qaataan shirka qarsoomidiisa wixii hiil iyo hooba ay isla garab taagaan dadka aqoon-yahanka iyo waxgaradku ay yimaadaan shirka ay yimaadaan taladoodii ra'yigooda loo baahan yahay ay keenaan maamulkoodii abaabulkooda ay la yimaadaan ninkii wax doonaya ama ha noqdo madaxweyne ha noqdo mar labaad waa ku celinaya cid uu shirkaasi u afduuban yahay iyo cid gacanta ku haysata iyo cid wax magacaabanaysa midna ma jirto waa doorasho weey taasoo aanu doonaynay inaanu kaga baxno wixii qalad ee maamulka iyaga ka dhacay maamulkii magacaabista hadda wixii ka dambeeyana nin la doortay oo dadku doortay uu raalli ka yahay oo ay hubaan inuu wax u qabanayo halka uu ka soo baxo gacan laga wada geystaa hadii Allah aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasoo wuxuu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka Khaatumo State Maxamed Ducaale Cabdi oo nagu warramay studio-ga Samsam TV ee magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya